يوجهنا الله تعالى. شني waxa uu leeyahay saa'ilku sheekhow ninka waa gabadh cida soo qortay sheekhow ninka iyo waalidka yaa xaqiisu horeeya haddii ay isku marigu yimaadaan shibile. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عمر بن الوريجي ninka iyo waalidka ninka xaq weyn goorma gabadhu markay reer gasho waalidka gabadha waxay ku wareejiyeen ninkan markaa samcu wataaca xataa markay booqanayso waalidka odageeday ka fasax qaadanaysa marka gabadha tan ninkan lagu daray baa oday u ah isagaana xaq weyn tusaal gabanana waxaa ku garataan cawradeeda hooyi aabba midna tusi ay mayso laakiin odageeda ma ka qarinaysa waa garteen mustawaha laysu joogo diinteennu waxay oggolaatay odaga hadduu dhinto in gabadhuu qaba ay dhaqi karto gabadhuna waa dhaqi karaa odageeda meydkeeda waa dhaqi karaya nabiga caaisha wuxuu yidhi haddaan aan kaa dambeeyo oon ku dhaqa dembi male caliy bni abi taalib inuu faatimo dhaqaan filaya marka waxaa weeye gabadha waxaa u xaq weyn ninkeeda maadaama ay gabadhii nin leedahay waalidkuna birigiisii waa halkiisii in la ixtiraamo in la adeeco in dhib idaykii laga ilaaliyo in loo samafalo birigii waalidka waa halkiisii laakiin yaa xaq weyn hadday noqoto waxaa u xaq weyn ninkeeda wabilaahi towfiiq culammadu waxbaa ku dari karaan hadday aragti kala jirto waxaan rajaynaynaa waxba maaragtay lagu dari doonin. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.